xildhibaanka degmada Kaamakunji mudane Yuusuf Xasan Cabdi oo booqasho ku yimid xaafadda Soomaalidu ee degtay Islii ayaa shacabka Kenyaanka ka codsaday inay codkooda siiyaan mar kale si kursiga xildhibaanimo ugu soo laabto. Yuusuf Xasan Cabdi xildhibaanka degmada Kaamakunji ayaa waxa uu sheegay in maalinta Jimcaha ee nagu soo fooda leh in la qaban doono codbixin ay ku kala hari doonaan musharaxiinta u taagan xildhibaanka degmada Kaamakunji iyadoo musharaxiinta ugu codbata ay isugu soo hari doonaan tartanka ugu dambeeya doorashada soo socota ee dhici doonta bisha 8 ee sanadkan. walaalayaal waxaan mar kale idin soo maray halkan anigoo idinka codsanaya inaad si buuxda oo laxaad leh aad u soo baxdaan maalinta Jimcaha bishan April 22 weeyaan doorashada xisbiga Jubilee baana ugu badan deegaankan hadaad la socotaan ninka Jubilee ku soo baxa baa xildhibaan idin noqonaya ha noqdo xildhibaanka ha noqdo MCA-ga labada qofba waxaan idinka codsanayaa inaad soo saartaan subaxnimadii salaada subaxnimo markaad ka soo baxdaan inaad isku shubtaan Islii High School, Islii New Primary School, St. Teresa Primary School, Maina Wanjigi Secondary School, New Airport Primary School oo codkiina subaxda horeba ka ridataan si nabadgelyada waa la ilaalinayaa askarta iyo dawladda ayaa joogta wax dhibaato idin geysanaya ma jirto waxaad u baahan tihiin ID-ga ninkii isa soo qoray ID buu baahan yahay wax kale uma baahna marka safka hore ka soo gala waxaan idinka codsanayaa inaad garab isiisaan oo mar dambe igu soo celisaan ninka Soomaaliya kaliya taagan waa aniga marka ay soo siiyo codkiina maalinta Jimcaha ayaa dadka haysta kaararka codbixinta ee loo yaqaan kuuraha waxay kala dooran doonaan musharaxiin badan oo u taagan xilalka gudoomiye waaxidyo iyo xildhibaanka degmada Kaamakunji. Abdullaahi Axmed Cali, Telefishinka Somali Cable, Nairobi.